asalaamu calaykum aqaarta meel baa joogtiin oo markale muuqaal cusub ku eegi doonno wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga iyo akhbaaraadada xilligan suuqa laga diiwaangelinayo Bruno oo markaan ku wajahan kooxda Al Hilal ee Sacuudiga ka dhisan Real Madrid oo qorsheynaysa soo qaadashada Rodri Liverpool oo u dhaqaaqday laacib ka tirsan kooxda Atalanta Barca oo wada hadallo la bilowday Thomas Partey xilli Manchester xidig ay ka doonayaan kooxda kubadda cagta ee Brighton Chelsea oo markaan ku dhow qaadashada Game Getson iyo Alexander Garnacho oo Manchester isaguna ka tirsan Liverpool oo ugu dambeyn 50 milyan ku fasaxaysa Luis Diaz maxaa ka soo kordhay sheekada Florian Wirtz ugu dambeyn way soo gabagabooday haddii aad muuqaalka ka hesho walaal garay kanaalkana subscribe noo saar haddii aanu ku bilowno akhbaaradii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ugu dambeyn Chelsea way ku guuleysteen Lamine Dalab iyaga ayuu markaan gacanta ugu jira tijaabada caafimaad ay maanta mariyeen oo isniina xilli horeetaba marka kooxda kubadda cagta Chelsea shalay toole Arsenal ayaa doonaysa inay qoto-qoteyso ninkan ay ka dulqaadan laakiin shakada way soo gabagabayeen Chelsea heshiis 2031 gaariya ayay ninkan ka saxiixdeenba sidoo kale Chelsea waxa haatan ka cusub Chelsea ayaa wada hadallo markaan kula jirta laacibka lagu magacaabo Game Getson wada hadalladu waxay ku bilowdeen si dardar la iyo ku bilowdeen Chelsea ayaana markaan ku dhow inay la wareegaan saxiix kaleeto waana Game Getson Chelsea ugu yaraan isbuucan dhexdiisa ilaa 10 bisha laga gaariyo 3 saxiix ugu ilaa 4 saxiix ay ku dhawaaqi karaan Game Getson ayaana qayb ka noqonaya wiilkan ayaana haatan Chelsea ogol inuu dhankooda usoo dhaqaaqo wiilkan ayaa akademiyada Chelsea soo maray kadib Reading kadib City haatan waa 20 jir u ciyaara Borussia Dortmund ninkan ayaana haatan kooxda kubadda cagta Chelsea sheekadiisa way soo gabagabeynayaan waan stage-kii ugu dambeeyay wada hadallada ayaa lagu jira kooxda kubadda cagta Chelsea ayaana markaan qarka u saaran qaadashada Game Getson sidoo kale kooxda kubadda cagta Chelsea waxay kali ku noqonayaan Alexander Garnacho ay 50 milyan ku soo xirigelinayaan ninkan wuxuu yiri meela Premier League aan kama ciyaarayo anigu waan sii joogayaa Premier League Manchester oo ka dhaqaaqaya Chelsea ayuu ku beeriyaa Napoli iyo Bayer Leverkusen ayaa aad u doonaya laakiin laacibka Argentineska ayaa go'aansanaya maaliyadda buluuga ah inuu markaan xirto Alexander Garnacho markaan kooxda Chelsea gacanteedu ayuu ku jiraa maadaama haatan ninkan oo yiri aniga meelaha Premier League aan marraba inaan ka sii ciyaaro marka taa waxay ka dhigantaa in Chelsea uu ku beeriyo majalada The Mirror haatan iyo The Sun iyo The Standard dhammaan haatan waxay daabaceen in Chelsea ay 90% Alexander Garnacho markaan iyagu xaggooda uu soo mariyo marka Garnacho markaan Chelsea ayuu u dhaqaaqayaa marka kooxda kubadda cagta Chelsea akhbaaraadida ayaa haatan ka cusub sidoo kale kooxda Barcelona ayaa wada hadallo marka la bilowday Thomas Partey qandaraaskiisa wuxuu dhacayaa bishan haatan aan ku guda jirno ayuu qandaraaskiisa ku egyahay gabi ahaanba ninkan Arsenal waxay doonayeen inay heshiiska u koriyaan laakiinse sheekadu weli way socon la'dahay Thomas Parteyna markan kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa doonaysa waxayna rabaan qalbadooda dhexe inay ku soo xoojiyaan ninkan ayaa ku badburburiye عجيبة مركز سيادرات برشلونة وحيدونيان توماس بارتي مركان إني سوحر قليال قاب بلاشة أيان كوهليان وذا هذا هات الملفي على مريان لابد نعبا مركان وذا حاجودي آد ومهمة أي أوضة سعودة توماس بارتي وحي أمو قنية متكهولي قلعة إمارات استوديو مدينة الشيء كذا إسبدلين أو حيابا كالتي كسو عسبوران لكن سهات مجلده إسبين كصباحي كوبا إغلان دمان هات الوحيد دابعيان إن توماس بارتي وذا هذا الله هرمر له مركان لصماني kooxda kubadda cagta ee Barcelona marka Barca Thomas Partey ay doonayaan inay xirgeliyaan dhinaca kale kooxda kubadda cagta Liverpool kadib Florian Wirtz ku dar Milos Kerkez ku dar Frimpong waxa loo dhaqaaqayaa saxiix kaleeto waana laacib qadka dhexe ka ciyaara waana kubad burburiye waa kubad joojiye ka tirsan kooxda Atlanta una dhashay xul qaranka Brazil laacibkan Brazilianka Atlanta ka tirsan ay 45 milyan haatan dalab ay hor dhigayaan kooxdiisa laacibkan ayna doonayaan inay soo xirigeliyaan macallin Arne Slot wuxuu doonayaa in Liverpool shan haatan ay ragnay mid kaleeto ku dul dhiso laba Liverpool oo ah mid fadhida iyo mid ciyaareysa inuu la soo shirtago maadaama Liverpool keedkeeda markaa fiiriso haatan dib ugu noqoto ciyaartooy aad u muhiim ah ma fadhiyaan qalbadooda dhexe weerarkooda rag badan oo fiican ay fadhiyaan laakiin difaaca iyo qadka dhexe rag badan ma fadhiyaan laakiin haatan mida uu ka taxadaraya laacibka lagu magacaabo Anderson oo kooxda kubadda cagta Atlanta ciyaara ayuu haatan soo xirigelinayaaba sidoo kale Florian Wirtz sheekadiisa way soo gabagabowday ugu dambeyn Liverpool laacibka way ku guuleysteen heshiisyadiina way soo dhamaadeen walow heshiisyada qaar weli ay socdaan laakiin sheekada way soo gabagabowday Florian Wirtzna waa laacib Liverpool markaan haddan ana idin dhahayaba Liverpool ugu dambeyn
Wirtz way ku dhawaaqayaan saacadaha soo aadanna Wirtz wuxuu noqonayaa laacib kooxda kubadda cagta Liverpool wiilka isku tiimka ay ahaayeen Frimpong oo haatan ku sugan Liverpool ayuuna markan kula soo biirayaa kooxda kubadda cagta Liverpool marka Liverpool markan taageerayaashooda dhoosha ay ka qosliyaan 109 milyan sheekada 22 milyan oo gadaal laga bixi doona balaa waa israacda markan Wirtzna waa laacib Liverpool sidoo kale Liverpool oo doonaysa lacagaha Wirtz kaga baxay inay soo celiyaan xoogaa kamid ah waxaa 50 milyan markan ay ku go'aamiyeen inay ku iibinayaan ninka lagu magacaabo Luis Diaz kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa doonaysa markan inay soo qadaan Al Nassrna sidoo kale dagaalka qayb ayay ka tahay marka kooxda kubadda cagta Liverpool ugu dambeyn go'aankooda ugu dambeeyay wuxuu noqdaba in 50 milyan ay ku iibiyaan laacibka lagu magacaabo Luis Diaz dhinaca kale tan wararka haatan jira qayb waxa kana qor Real Madrid ayaa qorsheynaysa inay la soo saxiixato wiilka Manchester City qalbada dhex ugu ciyaara Rodri ayay doonayaan 2026 inay haatan la soo saxiixdaan marka kooxda kubadda cagta Real Madrid haatan waxay qorsheynayaan ninkan inay soo xirigeliyaan majalada lagu magacaabo Daas ayaana haatan warbixinta daabacaysa Rodri oo ah ciyaaryahanka ugu muhiimsan adiga kooxda Man City ninkan hadduu City ka maqaya City waa waay xil ciyaareedkii hore waa aragteen Rodri ayaa ka dhaawacmay nimanku way wareereen kaalimaha afraad iyo saddexaad inay soo carirsadaan ayay noqdeen sidaa daraadeed Real Madrid haatan iyagoo ruuxda qalbada dhexe kubad joojiya fiican ay raadinayaan Rodri ayana markaan raban inay soo xirigeliyaan walow City ninkan uu ka yahay mid lama taabtaana Madrid ayaan isku dayaysa ninkan inay soo xirigeliyaan suuqii horeeto Madrid waa lala xiriirin ninkan laakiin sheekada ma isa socon laakiin Madrid haatan waxay rabaan ninkan lagu magacaabo Rodri inay soo xirigeliyaan marka waan arki doonaa sheekooyinka iyo wixii ka soo kordhaba dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa suuqa haatan ku jirta kadib saxiixoodii Matthias Cunha ugu dambeyn saxiix kale ayay u dhaqaaqayaan Manchester xidiga badan ay suuqa horta ka baadid goobayaan dambeed bidix walow haatan ay haystaan dambeed bidix kale ayay doonayaan ciyaaryahan lambar 9 way doonayaan marka rag badan ayay raadinayaan marka haatan waxay u dhaqaaqeen laacib lagu magacaabo Berifis Stubinana laacibkan ayaana u ciyaara kooxda kubadda cagta Brighton waa dambeed bidix Lucas Shaw ayay bedelkiisa rabaan laakiinse Badriki Dorgo ayay haystaan oo dambeed bidaxa walow Manchester macalinkooda Amorim oo ninkan haatan doonayo marka laacibkan ayaana u dhashay xulka qaranka ee lagu magacaabo Ecuador waa nin Ecuador u dhashay Manchesterna haatan waxay rabaan ninkan inay soo xirigeliyaan Brightonna waxay rabaan lacaga fiican ninkan inay farta ka saaraan oo ninkan ay kaga sabarsiiyaan marka Shayaadiin Xumra haatan waxay doonayaan laacib ka tirsan kooxda kubadda cagta Brighton waana laacib lagu magacaabo Berifis magaciisa kale gadaal u raacsan Stubinana waxsaas camal alla waa Latin Americanka oo iska magac adag yihiin ninkan ayaa haatan Manchester doonayaan sidoo kale tana kooxda kubadda cagta Manchester United wiilkooda ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes ugu dambeyn Manchester inuu ka dhaqaaqay ayay u badnaa doontaa xidigan markan kooxda kubadda cagta Hilal waxay ku karsoon tahay in iyagu dhinacooda soo mariyo wakiilkiisa ayaa Sacuudiga ku sugnay maalmihii ugu dambeeyay haatan ayuu ka soo noqday Sacuudiga oo qaaradda Yurub ayuu dib ugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Al-Hilalna markan si serious ay sheekadiisa rabaan inay u dhameeyaan Bruno Fernandes oo kamid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan haatan Manchester United markan Sacuudiga ayaa markan uga gacan haatiniya laacibkana waa laacib world class marka Bruno Fernandes markan Manchester waa macsalaameyn iyagu ruuxooda bedelkiisa waxay soo qaadanayaan laacib lagu magacaabo Pedro Goncalves oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Sport Lisbon marka akhbaaraadaydaana waxay ku soo kordhay waan arki doonaa haddii aan muuqaalka channel garay kan subscribe noo soo gudba